wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka Oromada ayaa soo gaaray deegaanka Soomaalida. waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. waxaana halkaas diyaar ku ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreeya deegaanka Soomaalida qaybaha kala duwan ee kooxaha fanka iyo hidaha dhaqanka. waxaa laga dareemayay magaalada Jijjiga ilaa shalay qabanqaabada soo dhaweynta Shamilis madaxweynaha deegaanka Oromada ee dhawaan dib loogu doortay inuu hogaamiyo deegaankaas. dadka qaar ayaa imaatinka Shamilis muran galiyay waxaana ay calaamad su'aal u saareen sababaha ka dambeeya booqashada Shamilis. waxaana xusid mudan inay diyaarad khaas ah nooca ciidamada ee qumaatiga u duula helicopterka ay diyaar ugu ahayd garoonka, taasi oo labada madaxweyne u qaaday degmada Jilicsani halkaas oo ay waqti kula qaateen bulshada ku dhaqan degmadaasi. degmadan ayaa horay uga tirsanay deegaanka Soomaalida waxaana la hoos geeyay maamulka Oromiya oo ilaa hadda ka arrimiyo. dadka qaar ayaa leh dhulkii Soomaaliyeed ee si sharciga khilaafsan loo hoos geeyay deegaan kale in maanta booqashadiisa naloo soo maro loona kaxeeyo hogaaminteena laguna qaado diyaarad khaas ah waxa ay muujinaysaa in laga guuleystay. deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ku socotay ilaa maalintii la hoos geeyay Itoobiya laguna waday qaadashada dhulka sifooyin kala duwan lagu hesgeynayay deegaamada Anfarta iyo Oromada. Soomaalida ayaa saameyn ku lahayn saaxadda siyaasadda dalka waxaana muujinaysa habka loo qaybsaday xukuumadda cusbayd ee uu soo dhisay Abiy Ahmed. Soomaalida ayaa kala kulantay wajigabax dawladda cusub ee la soo dhisay dhawaan waxaana ay Soomaalidu ku lahayd hal wasiir. dadka qaar ayaa ku dhaliilay inuu yahay nin dantiisa uu yaqaano balse uu wax matalaad ah u lahayn Soomaalida horeyna uu u soo hayay xilkaas hase ahaatee wax uu dadkiisa uga faa'iideeyay aysan jirin. si kastaba ha ahaatee xisbiga Barwaaqo ayaa ahaa xisbiga ugu taageerada badan deegaanka Soomaalida balse waxa ay muuqataa in siday u dhaqeen aan loogu soo lisin. deegaanka Soomaalida ayaa loo dhisin maamul waxaana la dib riday doorashadii deegaanka lagana reebay tii dalka. dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa leh waxa loo dibligay deegaankan oo ah deegaan waqtigan amni ka jiro marka laga reebo gobolka City inay ku hoos lamaan tahay arrimo siyaasadeed. qolada ku soo baxdo talada dalkana ay shakhsiyaad Soomaali ah balse aan saameyn lahayn u soo magacaawdaan. bal maxay kula tahay adiga?